waxaan maanta review ka bixin doonaa mobilkan oo ah Galaxy A72 isagoo ah mobilka ugu fiican uguna weyn mobilada A series-ka. Waxa soo kale ogsoonaata muuqaalkan dhamaadkiisa waxaanu sheegi doonaa guuleystayaashii ku guuleystay hadiyadii hore iyo soo kale hadiyada maanta waxay noqon doonto. Markay noqoto dhinaca design-ka ee mobilkan A72-ga waxay isku mid ka yihiin mobilkaysa ka hooseeya ee noociisu yahay Galaxy A52. Markay noqoto mobilkan xaggiisa dambe iyo soo kale frame-kiisu waxa uu ka samaysan yahay plastic. Waxa soo kale qurux gaar ah leh ama soo jiidasho gaar ah leh mobilkan iyo qaabka ay ugu yaalaan afartiisa kamarood ee ku dhex jira shape-ka. Intaas waxa si raacda mobilkan A72 wuxuu yahay sida caadiga mobilka culus badanaa mobilada A series-ka isagoo ugu wacan tahay xaddiga batteriga weyn ee ku jira mobilka. iyadoo taasi jirto haddana mobilkan waxa uu noqon doonaa markaad ku isticmaalso gacantaada mid si raaxo leh ugu isticmaali doonto. waxyaabaha ka dhigaya mobilkan A72-ga in qiimihiisu uu ka sare maro qiimayaashin badanaa ku dhaqaanay mobilada A series-ka ayaa waxa ka ah waa in mobilkan uu yahay mobil iska caabinaya biyaha isoo ka samaysan maadaama nooceedu yahay IP67 oo badanaa ka ilaalisa mobilada inuu u soo gudbo dhaska iyo soo kale biyuhuba. shaashada mobilkan A72-ga runtii waa shaashad aad u ballaaran iyadoo cabirkeedu yahay 6.7 inch nooceeduna yahay Super AMOLED display taasoo waliba Full HD. waxay taasi ku sii raacdaa marka noqoto refresh rate-ka oo aan ku soo sheegnay inuu yahay inta second ay ku qaato mobilkaagu inuu sameeyo update aysan waxa cabirkiisu yahay 90 Hz. waxaad ku heli kartaa 120 Hz isagoo ah laakiin marka uu yahay mobilka A72 5G waxa soo kale mobilkan ku yimaada 800 nit kaasi oo ah in hadhow tole barantiska mobilkaaga aad dalaci karto in aad u badan iyadoo ka saacidi doonta in meelaha iftiinka dheeraadka leh mobilkan A72-ga aad si fudud ugu isticmaali kartid. Taamaha ugu fiican ee uu leeyahay mobilkan A72 waxa kamid ah waa inuu leeyahay battery cabirkiisu dhan yahay 5000 mAh isagoo ku hayn kara muddo dhan ilaa 4 cisho iyo badh. waxay taasi sii raacdaa in mobilkan uu wato fast charger cabirkiisu yahay 25 watt isaguna kugu buuxin doona mobilka cabir dhan 1 saac iyo 25 daqiiqo. waxaan hore u soo sheegnay muuqaaladii review-ga hore u bixin jirnay haddii batteriga cabirkiisa mobilka uu fiican yahay waxaan inta badan ku xidhni jirnay in speed-ka amba shaqada uu ku qabanay mobilkan uu yahay mid xawaarihiisa u sareeyo. mobilkan A72 waxa uu ka yimaadaa chipset-ka noociisu yahay Snapdragon 720G isagoo ahaan doona mid hadhow toole markaad u baahan tahay abiskaal culus inaad ku isticmaasho mobilkan mid si fudud u rangareyn doona. waxaana sii caawinaya inuu ku yimaado mobilkan maruu yahay 6GB oo RAM iyo 8GB oo RAM. maskaxda gudaha waxaad ku heli doontaa maruu yahay 130GB iyo maruu yahay 256GB. haddaynu nimaadno dhinaca kamarada ee mobilkan A72-ga wuxuu ka mid yahay mobilkani mobilada xagga dambe ku leh 4 kamarood isagoo kamaradiisa mainka cabirkeedu uu yahay 4 megapixel ahna badanaa kamarada ugu fiican ee ku qaadi karto xagga sawiraanta markay noqoto sawir resolution-koodu aad u fiican yahay. hadday noqoto dhinaca selfie-da ee mobilkan A72-ga waxa uu leeyahay selfie camera cabirkeedu uu dhan yahay 2 megapixel anoo idla wadaagi doona sawiradii lagu soo qaaday. soo kale markay noqoto dhinaca muuqaalada waxaad ku duubi kartaa labada kamarood kamarada hore iyo ta dambeba muuqaal cabirkoodu uu yahay 4K. kuwana waxay yihiin sawiradii aan ku tijaabinay mobilkan A72-ga. kaas waxa review-geeni mobilkii A72-ga ahaa waxaad la wadaagi doonaa bal guuleystayaashii ku guuleystay review-gii ka horeeyay hadii aan ugu talagalnay. guuleystayaasha wuxuu noqon doonaa qof kale dhaho ama macmiil kale dhaho Maxamed Sugaal xaga uu noqon doona guuleystaha macmiil kale dhaho Cabdiqani Xasan Cali iyagoo ku kala guuleystay $10 iyo $10. haddaba maxay noqonaysaa su'aasha maanta iyo habka lagu guuleysanayo? su'aasha maanta waxay noqon doontaa waxa lagu guuleysanayaa saacadda smartwatch-ka ee nooceedu yahay T520 waxaana qaybta comment ku soo qori doontaa haddii aad ku guuleysto saacadan sababta aad ugu baahan tahay. haddii markaa comment-kaagu noqdo comment-ga ugu loobka amba reactions-ka badan laba waxaad noqon doontaa qofka ku guuleysta saacadan. shuruuduna waxa weeye kaliya muuqaalkan like saar kadibna u share garay asxaabtaada kale.